السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة الصوماليات دافها الدنيا نجد دعونا يا دمانتين بوحن ندكو سلام يا سلامة إسلامك خير كبدن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إلهي سبحانه وتعالى هنجا أقبله وناجي الله دواشيه خيركي لسودي. ربي سبحانه وتعالى كوا كأقبله هنجا بإذن الله الباري شرف أي runtii ii tahay iyo karaamo gooni ah in aan maantay halkan ay wada joogaan fadiilatu sheekh adictor sheekh axmed nuur imaamka masjidka Seattle Washington iyo Faadumo Brambur oo iyaduna ah gabar Soomaaliyeed oo dulman ilmaheediina ay ku jiraan gacan kale laakiin gabar iimaan badan. ربي سبحانه وتعالى هبركيه فضيلة الشيخ الأستاذ الداعي الكبير الدكتور الشيخ أحمد نور حفظه الله ورعاه شيخ الأمة وإدي سود وين يا مركه هوري. جزاك الله خير بارك الله فيك أحمد إذا وقع يولاشين فاطمة برامبر لبدينا بويد سلامي وندونها جزاكم الله خير بارك الله فيك. وما هتسنتهين أنا سيدو قلي الحمد لله إلهي ما هذا ay u sugnaatay ilaahay baan u mahad celinaynaa adduunyada koonkeeda meel walba annagoo ka joognaa is wada arkayno ilaahay baa mahadale maasha allah waa dhawaa maasha allah Faadumo haddaan kugu hormaro markii ugu horreysay ee aad aragto ducadii iyo khayrkii iyo malihii wanaagsanaa ee sheekh adictor alimaam fadiilatu sheekh axmed nuur uu kuu daniyey iyo ducadii uu kuu duceeyey markii aad internetka ka aragtay maxaa dareentay? alxamdulilah ilaahay baa mahadda leh ilaahay baa maxay ahayd na gaarsiiyey heerkaas annagoo islaam inaan isku danqano shiiqo aad baan ugu farxay ilaahay waxaan ka baryayaa maalinta iyo malqiyaamaha in uu helo ducadaas abaalkeeda aadaan ugu farxay aadaan ula dhacay alxamdulilah ilaa agtinawdan waalidkay inkee waa loo geey oo Afrika joogo si aanan filanaynin baa u farxay maasha allah farxadaadina way sii siyaatay alxamdulilah iyo dadkii oo dhan baa igu soo wada yaacay maasha allah alxamdulilah inta wanaagsan markii aan sheegno daafaha adduunka ay ku kala badan yihiin maasha allah si fiican oo qof waliba ama cabkii shalay aan aqaan ha ahaato ama ehel ha ahaato waa la iisoo wada diraayay haddana 10 milyan oo snapka igu jirto waanya waa ku soo kacay fiiri Faadumo Brambur wadaadkaas ka hadlaayo maasha allah wadaadka ugu weyn maxay ahayd America masaajidkaas waan fiiriyay masa madaxii bay weynaaday subhanallah alxamdulilah waa ku farx maasha allah barakallahu fiik fadiilatu imaam adictor sheekh axmed nuur hore ma u taqinay Faadumo بسم الله وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين أحمد وفاطمة هوري وحن واقعين براها بلشدة أيان إن بدن كوارك جبردا إيو أنت أرنتي أي بلابتي لكن أقون أنت كبدن أمالهين ولنا ما ساكا كهر معنا وضهلين منا أنا وح information هو خاصة كما هي سنين مركا بمجرد أركتدان أركيبة هي هيدون براها كلا السعودي نعم ما شاء الله maxaad ku dooratay fadiilatu imaam inaad ugu duceyso u dabqato maxaa ku soo jiitay بسم الله ولا ليال هرت مركو هره waxaan rabaa inaan idhaahdo danqashadu waa diinteena waxayna amrayso waa qayb kamida weeye rasuulku waa kiilaa sallallahu alayhi wa alihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasadil wahid يعني ضدك مسلمين توربتا سيدا سال ربعين النقدان مثل الجسد الواحد هل جر أوكله رسول كوحر إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسائر والحمى هل حبن هدي حنون سطنة أضو عاوض وضع حنون سنة سافرت هديكو حنون تو مجم إكرتد عاوة مسلمين تصيدا سال ربعين النقدان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ودستا اسكو مارت دسن مid waliba mid kale uu hayo mid hadii laga saaro uu meesha ka baxayo hadaba iyadoo taasi tahay islaamkeenu wuxuu amrayay ayaa axmedow waxaan ku arkay gabadha runtii aad iyo aad ii geliya dareen iyo qiiro
horta sidii igu dambeysay waxay ahayd markii hore waa arkayey dhowr jeer baan la kulmay xilliyo hore I think kilibkii ugu horreeyey xajka miyuu ahaa xilli aan joogay mise ayaan meel ku arkay ma aan dee xilliyada ihtimaam sii badan qofkana way cusbayd oo xilligaa umuurteeda way cusbayd social mediahana markaa tashay isagoo intaad caawa fiiriso internetka ama facebooka waxoogaa hadday arrini kugu soo laalaabato waxyaabaha hadda aan fiiriyo waxaa ka mid ah haddii inta aad facebook ku yari jirto aad dhowr jeer hal arrin aragto arrintaa waxbaa ka jira meesha iclaan baa yaalla ama hawl baa ka taalla marka gabadh muslimaadka ka mid a gabdhaha muslimaadka oo magaalada Seattle Washington ila joogta oo aan u malay inay Faadumo inay is aqoonin iyadana ayaa kliibka ii soo dirtay maalintii 26ka ay bishu ahayd waxay ugu tiri Sheekh Axmedow gabadhan fariin ba ii soo raacisay leedahay gabadhan bal arag ha loo duceeyo marka waan furay kliibkii waa dhageystay waan ku celiyey kadibna waxaan soo xusuustay Axmedow gabadhii ii soo dirtay gabadhaas marka hadda ka hor 2 wiil oo la dhashay baa la xiray oo xabsiga ku jiray oo weliba dulmi lagu haystay oo la masabiday waa 2 wiil oo walaalo ah ayaa muddo xirna waxaan dareemay marka gabadhan ii soo dirtay Zahra baa la yiraahdaa inay xanuunkan dareemaysay inay dulmiga wuxuu yahayna dareensanayd inay gabadhan la xanuunsatay waxay ugu dhalisay marka inaan ilaahay amarkii ka fikiro arrinkii oo dhan baa ay qabsaday aniga jawigayga waan ku sheegaan u malayn kliibkayga quraankii aan aqrinayay xitaa waa i joojiyaa wuu istaajiyaa waan ka socon habeenka oo dhan waxay noqotay inaan iyada ka fikiro oo runtii aan weydiiyo yacni arrinteeda aan isweydiiyo gabadhan maxaa dhibaatada haysata maxay tahay marka tiibaa waxay ugu dhalisay inaan habeenkii oo dhan ka seexan waayo inaan ka fikiro inay noqoto wixii aan la noolaaday ilaa markii dambena aan riyooyin habeenkii igu soo kicin marka sidaas ay ahayd insha Allah barakallahu ما شاء الله الله كحوفظه فضيلة الإمام واد ريوتي ريادنا أنا جود إيدي دينا ديشكتو لكن واحد قلت لي فاطمة وبشاري بشارة داس أيان إلا يهدو الأجنة هي وحلوجها هي إن مرر بدن ريوتي نبي جينا محمد نبدي إن حريص كركي سها هتكون ريوتي أسألنا سؤال كلام كاس ودين دونا مانتي بل هذا الرياضة هذه هذا بنوشك تسيدي بسم الله وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين أحمدو رياضيدو waxay ahayd ilaahay amarkii qofna uma sheegin hadda ka hor hadda un baa igu horeysa habeenkii 26ka markii arrinta la ii sheegay 27kii bay ahayd markaan kliibka duubay habeenkii 27ka bisha Ramadaan ay ahayd baan subaxii bacda salaati subaxii waxoogaa ayaan seexanay marka waxaan ku riyooday Faadumo iyo dhakhtar iyadu ay dhakhtarkeeda yani waxaan leeyahay marka waa dhakhtar Faadumo oo qalliin gashay camaliya jiraaxiya ayaa la yiraahdaa qalliin bay gashay qalliinkii way ka soo baxday waxaa dhinaca marka midig iga fadhiistay dhakhtarkii oo qalabkii uu uga soo baxay qolka camaliyada uu ku sameynayay qaba dhinacan bidixna Faaduma iga fadhiisatay labadoodii baa labada dhinac iga fadhiyey iyadana dharkii qalliinkay qabtay markaa isaguna dharkii qalliinku qabay marka camaliyada jiraaxiyada ah oo naajixa waxay igu bishaareeyeen marka in camaliyadaasi ay tahay mid ay ku guuleysteen qalliinka waa lagu guuleystay waxaan Axmedow marka tacbiiru ru'ya wax la yiraahdo baa jira riyada waa la cabiraa horta riyada intaan la cabirin bar riyadu maxay tahay riyadu waa juz'un min an-nubuwwa waa qayb nabinimada kamid ah 48 qaybood oo nabiyadu u qaybsanto mid kamid ah way وانا وحيابها رياضو runta oo sidqiga away rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam subaxii asxaabtu weydiin jiro xalay yaa riyooday buu dhihi jiray marka wuuna fasiri jiray oo waa la fasiraa riyada
marka riyadaas markii aan arkay camaliyada jiraaxada ah oo qalliin ay gabadhii gashay oo qalliinkii lagu guulaystay isla markiiba farxad baan dareemay intaanan aadin weli inaan riyadii fasiro nacam ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير فاطمه wax qalliira oo aad rajaynayso maya hal intaanan taas ka jawaabin waxaa rabaa insha allah shiiqa iyo adigaba inaan idinka codsado waxaa jirta baraha bulshada dad aniga markii saan oo kale qof magac leh uu maxay ahayd to in isteexeeyo ama uu yacni ii duceeyo kale ama uu i waraysto in la qaato oo aaladaha youtube-ka mid kamida la gashto si akhlaaq daran iyo naxdin iyo wax aanan raalli ka ahayn oo aniga aanan suubin intaasoo bilood youtube ku jiro in la saaro oohin iyo hadallo yacni dadka muslimka daciifinaya ani nafsiyana i dhaawacaya taasaan rabaa inaan horta aan dhahno ma suubin kartiin haddii aad tihiin qof islaama oo ilaahay aad taqaanin ma qaadan kartiin masha allah ما شاء الله wax fiican waa talo wanaagsan allah ku xafido taasaan ka xumaaday siba hal gabaraan inkay arkay dadka qaar si qurxoon waxba may ku qorin waxna may ka badinin si qurxoonay u duceynayeen si qurxoonay shiiqa iyo anigaba iigu mahad celinayeen ama adigoo wariya laakiin se dad baa jiro akhlaaq daro beriis ku raadsaday faadumo saan la yeeli doono faadumo saan ku dhacday faadumo ooyeyso sidaan maya aniga ma ooyin mana rabo inaan ooyo haddaan ooyayna mar kastaan dhahaa ilaahay hortiis bes ayay oohin iigu bannaantahay bini aadan aan ii naxayn oo igu diir ahayn ama igu diin ahayn inaan aniga aan u ooyo nafsiyan ma rabo raallina ma kiiyo weligeen anuu ooyahay bulshada baraha bulshada leeguma arkay ما شاء الله ما شاء الله 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 ku xafido riyada shiiqa haddaan galno insha allah ilaahay riyada aan faadumo aan kaaga hormaro fasirkeeda waxaan rabay qaybtii fasirka inaan marka raaciyo waxaan rabaa inaan gabadha uga hormaro riyadu waa wixii lagu cabiraa la yidhi oo lagu fasiro alru'ya lima cubira riyada wixii lagu fasiray noqotaa insha allahu tacaala waxaan axmedow marka aan fiiriyey riyada cabirkeeda maxaa lagu cabiraa meero laga fiiriyaa jira oo riyada dad baa ka hadla oo kutub bay leedahay oo culimay leedahay marka waxaan fiiriyey riyada tafsiirkeedii bal haddayla arag fasirkeedu wuxuu noqday waxaa laga yaabaa qofku inuu wax kale markaa u qaato qalliinku waa maxay tahay waxa aan ku farxay almanaam bilcamaliya aljiraaxiya waxaan soo qaaday ereygii ay mufasiriinta riyadu ka yidhaahdeen si aan isagii idinku aqriyo alcamaliya aljiraaxiya qalliinku bishaklin caamin fi lmanaam si guud markii ay dhacdo manaamka iyo hurdada tadullu calaa ana alhama sawfa yazuul waxay ku tusinaysaa murugta ruuxa haysataay inay dhammaan doonto wa ana alxaalima sawfa yatakhallasu min jamiici mashaakili qofkaa riyooday mushkilaadka iyo dhibaatada hayso oo dhan inuu ka bixi doono filxayaa nolosha waxay tusisaa manaamka haddii qalliin aad ku aragto inay qalaq iyo qofka hurdala'aan barnaamijku ugu jiraayay inuu dhammaan doono waxay tusisaa qalliinku hurdada calaamatu khayr waa calaamo bishaaro ah waana umuur tasiiru calaa maa yuraam in arrinteedu sidii saxdayd ay ku socoto ayay tusisaa waxay tusisaa qalliinku calaamatu faraxin wa zawaalu lhumuum waa calaamad farax iyo inay humuumtii iyo qofkaa murugtii haysatay ay dhammaan doonto marka guud ahaan markaad fiiriso isu wada geyso maxaa ii soo baxay marka bishaaradu maxay ahayd bishaaradu waxaa weeye kiiska faadumo iyo qoyskeedu inuu khayr ku dhammaan doono ما شاء الله bishaaradii aan arkay oo suuratu yuusuf oo maaragtay ikhwatu yuusuf markii laga hadlayey inay u soo noqon doonaan oo yuusuf suu aabbihi ugu soo laabtay aan markaaba ku yidhi waa bishaarana inay bishaaradaa faaduma heli doonto insha allahu tacaala marka waa midda riyada iiga muuqatay marka faaduma waa ku socon kartaa insha allah baaraka allah fi maasha allah alxamdulilah ilaahay hanoo rumeeyo ilaahay hanoo hirgeliyo waana sugaynaa ilaahay idankiis ilaahayna kama quusanayno
markastana waxaan rabbiga subxaana qaadirka ah aniga inta islaam oo dhibanba rajo inay ku noolaadaan ay u fiican tahay rajada ilaahay rajo bini aadan waxba ma tarto aniga dadkoo dhanaa ii kacay adduunkoo dhan baa la iiga ooyey waa la ii duceeyey hadday dad bini aadan i daaweyn karaan bini aadankii maysan ii kala harin laakiinse waxaa ii dhiman daawadii ilaahay iyo xilliguu ilaahay raalli iga noqonayay wax qaliinoon galaayo ma jiro wax qaliinoo la ii sheega ma jiro walow haddaana xaamilo ahay waxba ma ogi marka ilaahay waxaan ka baryayaa fasiraadaas oo shiiqa fasiray rabbiga subxaana qaadirka ah in waddadii oo shiiqa ku fasira oo ilaahay noogu dhammeeyo اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين إلهي سبحانه وتعالى شيخ وتفك خير روي ضد بدر ودعي يا إلهي ودعدي سوى أقبلي إلهي سبحانه وتعالى وقادم وشيخ الأمة أمدان أردن أي أشقيا دنيه غير كيس ونح بحي إلهي سبحانه وتعالى أقبله دعدي خير كيس يريدي سبب إن شاء الله بإذن الله الكريم إلهي سبحانه وتعالى أقبل فاضل قبلها كلامتك المها لقى هيستو محات ثلاث سنين ساعة waxaan leeyahay maxay ahayto markii sidii loo fiiriyey waddanka aan joogo aniga ayaa ugu darnaay aniga ayay arrintaydu ilaa hadda maleegan tahay shiiqa fariinaan faranayaa maanta insha allah oo jimco ah caawa oo sabti soo galaysa annagana isla maalin galab ahaanta ama saacaddan hadda aan joogno ay weli jimco noo xisaabsan tahay adinku laakiinse waxaan u malaynayaa inay subax inii tahay subax jimcaad annagana galab jimcaad oo sabti soo galayso habeen aan usii dhownahay marka alxamdulilah horta fariin baa shiiqa faranaya gabdhaha kale waa waxa aan ku yacni ku calool gadoomay oo aan go-aan u gaaray oo aan halkaas youtubekaas iskaga hadlo ee aan diiday in la waswaasiyo ee aan diiday in islaamnimadayda ay halis iga gasho ama iimaankayga markaan ku leeyahay islaamnimadayda halis iga galayso qofka islaamka ah ilaahay muusan u banayn inuu isdilo marka arrintayda markii si loo fiiriyey oo qof walba ileeyahay kiiskaada na tus ama noo sheeg oo aan la tashtay ama aan u sheegay ama dadka ilmaha laga qaatay aan la xiriiray ee kiiskaada hadal leemaho ahaa ee see hadal lagaaga qaadanaa ilmo ee caddeen maa la keeno oo booliiska leeyahay kiiskaana ma dhammaystirno ilmaha waa kala hadleen haddana ayaku ilaa hadda ay caddeen haynin ilmihii qaar ooyaaya ee ay rabaan waraysi kusoo sheegaya haddana cunugii kaloo been sheega uu leeyahay heblaa itirisaas dheh oo haddana warqadihii guriga kusoo dhacay haddana xanuunkii kale oon hadda aad ula sii qaracma waxaa ka mid ahaa maxkamadihii dhan markaan marnay labadii maxkamad oo maxkamaddii saddexaad aan sugaynay ay kiiskaanii soo celisay ay tiri kiiskaan ma dhammaystirno maxkamadihii ansixiyeen waa in ay dib ugu laabtaan oo hadda iikow lasoo bilaabo ilmahan ooyayna waa in waalidkood wada shaqayn loo bilaabo kuwa youtubeka soo galay oo iyagoo ooyay axtii waalidkood waa sidaan iyo sidaan lagu yidhi waa in dib loo celiyo dhehen kiiskaan ma dhammaystirno mana qabanayno isla mar ahaantii midna waa lagu farxay midna waa lagu naxay marka ilaahay wuxuu yacni uu fudeeyo ayaa fudaysan arrintana ma fududo ilaahay bayna ag taallaa insha allah waan daalnay waxaa marka iska ilaaliyay mar kaste in waswaas uusa igelin in adiga maxay saan kugu dhacda aanan isla hadlin ama uu qalbiga iga dhaawacmin ama aan islaamnimadeydii aysan wax u dhimin marka go-aan ayaan gaaray shib ayaan iska ilaahay baan isku xiray marka anigoo tii la yaaban ay kiiskii meel u laayihiin ay ilmihii noo bilbilaabeen inayna tutusaan ayaa haddana cunugaa yar ee caloosh ku wada lasoo fargeliyey marka halkaasaaba arrintaydu ani haddana ay xatay baryahan usii qaraacantay haddana alxamdulilah qur-aanaa is saaray waan degay ilaahay baan isku xiray mar kastana ilaahay baan ka warsugaya sheekh axmed nuur نعم أحمد ها بسم الله ولا ليال هرت فاضمو waxyaabahan markii horena ku arkay kelimada hadda warkeeda ugu dambeeya alxamdulilah ay leedahay iyo shukriga ilaahay mar walba afkeeda ku jira ilaahay hoojin maayo insha allahu tacaala saaka maxmedow muxaadaraan mar dhoweyd ku jiray iyadana muxaadarada markaan aqrinayay weli fikirkii faadumo iyo qoyskeedu waa igu jira marka xadiid rasuulka sal allahu alay wasalam baa hadda nafteeda ijoojiyey oo isoo markaan aqrinayay wuxuu ahaa mucaad binu jabal
oo rasuulku uu jecelaa oo uu u sheegay inuu jecel yahay yaa mucaad innii uxibbuk waan ku jeclahay buu ku yidhi marka qofka qalbigiisaa furmaya markaasoo kale markaasaa wuxuu yidhi uusiika waan kuu dardaaran buu siiyey marka wuxuu yidhi markaad salaadaha tukato ha ka tegin inaad tidhaahdo allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika ilaahayow iigu kaalmee dikrigaaga iyo shukrigaaga iyo cibaado wanaagsan marka kelimadaa markaan maraya shukriga ayaa waxaan soo xusuusanayay faadumo oo ilaahay subxaana wa tacaala afkeeda uu ka dhigay alxamdu lilah shukriga ilaahayna uu ku badan yahay waxaan rabaa marka inaan idhaahdo dadweynaha oo dhanna ugu bishaareeyo walaalayaal ilaahay qofku u kaalmeeyo fa huwa almucaan laa xawla lanaa walaa quwa innaga awood ma lihin wax awooda ma lihin haddii 100 looyar iyo 100 dhakhtar iyo 100 fulaan iyo ilaahay wuxuuna fududaan maayo marka kelimada ilaahayna shukrigiisa markaad badiso la in shakartum laaziidannakum buu ilaahay yidhi haddaad shukridaan anna waa idiin ziyaadinaya ilaahay baa u ziyaadin ilaahay baa maaragtay u keenaya ilaahay baa qalbigeeda humuumta ku jirta shukriga iyo xamdi iyo raxmad iyo inshiraax sadri abaa degaya qalbiga markuu qofku ilaahay isku xidho wuu degayaa marka waxaan odhan lahaa dadka kale naftooda sidaa gabadhuba ay la dardaarantay hooyooyinka kale ilmo laga qaatay ilaahay isku wada xidha qof walba ilaahay intaad u dhowdahay baa umuurtaada ilaahay kuu fududaynaya ogaado qof walbo intaad alla u dhowdahay baa alla kuu fududay waxaan rabaa axmedow inaan idhaahdo oo kale dadka qaar baa qofku in ay ku dhacday xanuun soo maray ama isagu ha jirrado ama ilmaha laga qaato ama dhibaato kale ha soo marto ama dhimata geeri ha ku timaado ma aha ruuxu inuu yahay ruux xun bal waa bilcagsi bay tusinaysaa wanaag yaa ummaddan oo dhan ilaahay intuu abuuray yaa ugu dhib badnaa ambiyada ilaahay iyo rasusha ilaahay yacni adduunka inta khalqiga la abuuray makhluuqaadka qofka ugu dhib badnaa wuxuu ahaa ambiyada ilaahay iyo rasusha ilaahay qaar baa ogtihiin ninba sidoo qaar baa dab lagu riday qaar baa maaragtay baddu ay la tagaysay qaar baa xood cunay qaar baa la daba cararayay oo fircoon daba joogay qaar nin walba siba nebiyullaahi moxamed oo magaaladuu ku dhashay joogay ayaa dhiiggii garaac iyo wixii lagu samey madaxa lagu yabay lugaha dhiiggu uu ka socday oo qof waalan loo yaqiino oo laga ceyriyey meel walba marka ambiyada ilaahay baa dadka ugu dhib badan oo la soo mariyaa nebiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam awlaad buu dhalay carruur buu dhalay wiilal buu dhalay ilmihii dadka ugu jeclaa wiilkiisii oo ibraahiim oo maaragtay cabdullaahi iyo carruurtiisii yaryaraan bay kulli ay ku wada dhaafayeen dayib sabirka marka waxaa rabaa qofka waa la tusaya waxbaa la xanuujinayaa laakiin qof walba qofku adduunkan ka dhibataba alamthalu faalamthal buu dadka ugu fiican waa dadka dhibka soo maro marka taana waxaan rabaa inay dadka u fahmaan faadumo erayadeeda markaan marar badan dhegaystay waxaan dareemay inay jiraan dad badan oo arrintooda ka hadlaaya oo maaragtay si kale ama u fasiraaya ama qaabkii loo qaatay ka hadlaya ama qoyska noloshoodii gaadhay oo wax ka sheegaya waxaan ogaa dadkaas rabaa inaan idhaahdo qadarka ilaahay miydaan rumaysnay qadaha ilaahay miydaan rumaysnay miyaydan ogayn dadka ugu fiican in la dhibo oo ilaahay imtixaanaad u mariyo bal imtixaankaana la fiirinaya qofku ma sabrayaa mise wuu argagaxayaa hadduu marka sabro uu soo istaago dadkii salafka waxay odhan jireen 4 jeer baan ilaahay ku xamdinaa bal u fiirso 4 jeer baan ku xamdinaa inuu ilaahay dhibaatadan uusan maaragtay igu wada dilin inuusan alla subxaana iyo inuusan ilaahay dhibka igu dhacay diintayda yeelin u fiirsada walaalayaal aduma waa gabadha muslimadda ah ee dharkeeda qabta ee xijaaban ee asturan ee hadalkeedu mar walba uu shukriga iyo xamdiga ilaahay ku jiro oo gurigeedii haysata oo maaragtay ilaahay u xamdinaysa marka ka warrama hadday fitan diinta qofka kaga dhici lahayd maxay ilmo u tarayaan maxay u qabanayaan qaraabo
maxay u qabanayaan hadduu ilaahay diintii quruxa ka fidnayo marka ilaahay inuu diintaadii kuu badbaadiyey waa nimcada ugu weyn weeyaan dad baa rabay inay ama waalato say sheegto ama kuwa gaala ha noqdaan ama kuwa kale oo xumaan wada ha noqdaan ilaahay baa sugay sabaat fi diin ilaahay buu alla siiyey wuu sugay wuu toosiyey wuu ilaaliyey marka wax ka fiican oo qof la siiyay ma jiro marka waxaan odhan lahaa yaan dadkaasina dambaabin aad bay runtaa hadallada gabadha aan u dareemay inay jiraan dad si xun mar walba uga hadlaya dadkaas ogaada ama dembi baad gelaysaan oo ghiibaad ku dhacaysaan oo xasanaadkiinni iyo acmaashiinni baa la qaybsan nin la odhan jiray dadkii salafka cabdullaahi ibnu mubaarak baan hadda ka hadlayo sufyaan athawri nin kale wuxuu ku lahaa abu xaniife wuxuu ka fog yahay beenta ninkaas nin lamid wuxuu ku yidhi cabdullaahi ow abu xaniifa wuu ka caqli badan yahay in camalkiisa la qaybsado oo dad kaloo guryahooda jiifo uu u shaqeeyo wuu ka caqli badan yahay marka ha noqonina in wixiinni la qaybsado soomkiinni iyo salaadiinni iyo sadaqaadkiinni la qaybsado dadka muslimiinta ana rasuulku wuxuu yidhi almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadi muslimku waa qofka dadku ka nabad galaan wey marka ummadda ilaahay dadkayga soomaaliyeed aan jeclahay waxaan leeahay alla ummaddiisa aan nabadgelin si ilaahay innagana inoo nabadgeliyo nacam maasha allah jazaak allahu khayr sayidulkariim faadumo iyo lama xirin iyo ninkeedaba waxaa kaloo xusud mudan ilmaha dhan inay hal nin u dhashay hadda ay garabka ishaystaan gurigooda ay joogaan faadumo ma lagu xiray maya alxamdulilah nalama xirin annaga sidaanba meel kasta ka sheegay arrintu buuq ayaa ku dhacday gabar yaroo dariskay ka bilaabatay iyo gabadhayda iyo waa habeene buri gabadhan iga wad markay diidda anaa bixiyey kabacdi cunugtii iga galaafatay kabacdi booliis baa loo dhiibay anigu raadinteedaan galay xaajiga ilmaha kaleu sii hayay waa imaadeen booliis ordaa ilmahay waraysteen cunugtay dib ugu noqdeen waxay dhaheen wax dila iyo wax korkaadaan kuma yaalaan gurigiina u noqo cunugta marka waa cunug laga aqli badiyo oo layidhi xurriyadaad helaysadaan oo sidii ay ku tagtay booliiskia noo soo noqday in ma rabto waa la badbaadinaya ama meeshay codsatay oo sooshalka loo geynaa waxaan ka codsaday in aan arko way ii ogolaadeen alxamdulilah nalama xirin 10 bilood ayaa hadda gacanta la gashay oo beriyay ka qaadatay bishii 10aad ay ka qaadatay muddada ilmahayga maqan yihiin ilaahay baa mahadda leh la ima xirin cidina iima imaan gurigayga lama baarin aniga iyo ninkayga barbaleen nalama gelin alxamdulilah waa fiicannahay haddana ilaahay wuxuu nagu risaaqay beybigaan caloosha galay siyaabo badanba ah ku dhacan oo aan dhib badan la maray waa deganna ilaa agtinawdaan ilaahay baa nimco nagu maneeyay waa fiicannahay wax dhiba nooma imaan sayidii taas waxay muujinaysaa inaan dembi lagu helin haddii dembi lagu helo oo ilmihii waxa cad hadda inay gabadha tiri lama noolaan karo oo halkaas arrintu ay ka bilaabatay laakiin dabcan waddamadan aan joogno qofka dembi haddii lagu helo waa la xiraa soo maahan nacam sidaas weeye ha maasha allah maxaan taasna ka qaadan karnaa sayidii walaalayaal waxayna tusinaysaa uun qadar ilaahay bay wax ku dhaceen sida gabadhuba sheegtay waa dhegaysta qisadeeda iyo qaabka wax looga qaatay iyo asbaabtu way timaadaa dad baa laga yaabaa inay siyaabo u fasiraan ilmaha maxay u kaxaysay maxay u burisay laakiin waxaan rabaa waalid walba inaan weydiiyo maxaad samayn lahayd adigu inaan isnidhaahdo maxaad samayn lahayd gabadhaadii oo gabar yar oo kale ay duufsanayso oo akhlaaqdeedii laga yaaba laga fasahaadiyo adigu maxaad samayn lahayd isweydii waxaa laga yaaba maanta inaad si sahlan u tiraahdo maxay u samaysay maxay kan u samaysay maxay u burisay maxay laakiin adigu maxaad samayn lahayd ma ogolaan lahayd in gurigaaga la fasahaadiyo ma ogolaan lahayd in gabadhaada yar laga caqli badayo la fasahaadiyo mowqifka aad qaadan lahayd muxuu ahaa laakiin waxaad ogaataan faadumo mowqifka ay qaadatayna wuxuu ahaa ilmaheedii inay u naxaysay inay u dadaalaysay inay doonaysay inay u badbaadaan inaan akhlaaqdooda laga fasahaadaynin waxa ku yimidna waa qadar ilaahay marka masalada in loo daayo ilaahay qadarkiisa yacni in la rumeeyo waxyaabaha cajab badan walaalayaal waxyaabaha dhacaya hadduu qofku rumeeyo ma dhaceen haddii adduunka oo dhan isagu tago ilmaha lama celiyeen waa wax la qoray faadumoy waa wax la wadan og tahay waa wax laguu qoray inaad marto intaan inaad soo marto wax qornayd bay ahayd cid kaa celin karta ma jiro asbaab bay ahayd gabadhan in lagu nacam aan kugu sii maasha allah
si maadaama adi aad maasha allah dadka soomaaliyeed shiiqoodii aad tahay oo aad wax ku wada dhegaystaan gabdho wanaagsanna ay kugu xiran yihiin inta ilaahay rumaysan oo qadarta ilaahay taqaana kaaga daranay ilmuhu in hooyada ay aabbaha ii haayeen in waddankaygii la geeyey halkaas ay diintoodii iyo dhaqankoodii iyo waalidkii aysan arkin ku soo barteen ay joogeen waxoo dhanba deg deg oo ahay gurigan deg degaan kusoo degay ceyr kuma jirin alxamdulilah intaasoo sano oo 4 sano camala markii la geeyaba lacagta waa lagaa jartaa kabacdi aniga iyo aabahoodaa ordaynay alxamdulilah deg deg gurigan deg deg tigidkoodii xatii deg deg intaasoo $1,000 haddana soomaaliya igu dhegtay oo layidhi soo bixi lacag $2,500 intaas ilmahaada joogeen ilmahaada waa ajaanib baasboor weyn ay wataane haddana dib usii dhacay joogay wax yar markay joogeen oo caruurtii ay ii koreen oo ii weynaadeen oo maasha allah aan alxamdulilah ku faanayo waa kanba dee hal mar un kol ayadoon dhib ka dhicin dhibaato kale nagu dhicin cid kalena faragelin hal mar un gabar yar gabar kale la saaxiibtay xaafaddaa markaa soo degay sheekadii dhanba galaaf uu dhacay haddana dib baan u fikiray ilmahaada intaan way ka yaraayeen wax yacni dhiba maada ku qabin waa dhalaysay ayagoo yar yaraa keentay qaar kale inta ku dhashay weligaa dhibaato maada kula kulmin maanta adigoo oo taagan aabbihii taagan ilmihii oo koray tii u yarayd ee ahayd 3 sano iyo wax la jiro soo lagaama qaadan haa isdeji marka soo intaad dadaashay dadaalkii duca haddaan isdhila waa inkaaranta waalidkaa ilmihii kuu haayay waa fikira waxaan isiri maya waxaa waa wax ilaahay wato ilmahan in weliba gabadha ugu aqliga badan laga aqli badiyo gabadha ugu fiican ee ilmahaygu ahayd ilmuhu waa kala fiifiidhoon yihiin la igu yidhaahda xatii hooyadeeda qaabka iyo saas iyo hadalka anaa waagaan yaraa cunug waxaan ahaa ad ilmaha oo yacni aan dhibka badan oo ah haddana in lagu xamaasho iyo in la abiyuus aan jecleen marka gabadhan aaday u fiicneed feer guud u ahayd markaan shaqada aroosyada gudanayo kale maamadii hayse iyo ayada haye hooyo ilmaha inii soo gelin guriga isaan waay soco noo ilaahay caafimaad ha ku siiya noo imow hooyo saas noo yar aabe iyo ayaga iyo yacni cunug aqli badanayd cajaa'ib waxyaalaha qaar markaa dib ilmahayga u fiiriyey ilmaha xataa ilma dhibaay ma ahayn waa fikri waxaan is dhahay keen deg deg guriga ka bedel gurigaan soo deg dhibaato dhan soo hal mar wax sanad ka yar ma dhicin haa ilaahaygi intaasoo sano ku nooleey intaas ilaahay kugu ceeb astura intaasoo awlaada ku sii adigoo yar ilaahay ku oo yacni ceebtaada astura maxaa maanta adig u qaadan la-adaa in waxaan qoraal rabihiin maxay cunugtan dembiya leeda waxba cunugtan wax dembiya male waa ilmo yar xag allaysa dembi ka lahayn dib aan maskaxdayda u ceshtay dib aan u diida hadallada dadka alxamdulilah taleefonkayga ilaa hadda qofkaan rabaan ka qabtaa qofkaan rabin kama qabto way inkaaran tahay ninkaa ilmaha ka dila 100 nin ee u dhashay aroosay taagneed way iska hadlayaan laakiinse anigu go-aan ayaan gaaray oo ah tan igu dheelaysa inay tahay cadowgayga inay iwaasho ay rabto tan aflagaadada igu wadato islaamnimo iyo soomaalinimo ilama wadaagtee waxay jeclaan lahayd inaan aniga dhinto ama aan waashto oo sariir ku aruuro ma ku fikiraysa ilmahaad ka dilaysaa ma ka fikiraysa gabadhaan xag kalaa lagala dagaalamaa bas waxaa dhibaaya soo jeedkayga iyo hadalkayga ما شاء الله صبر إن شاء الله صاحب الفضيلة بل قدرك قدرت نوض المر بسم الله أحمدو قدرك هذا واقيب إيمانك بكمدة يعني قفكو إيمان ماله رمينا ماله وإحنا وحيابا وقوه الرئية أو أركت الدين تمرك لسوق ريو وحاكا مدى قفك أركان الإسلام كو شنأة يا أركان الإيمان كو اللحة مركوام حي مثلا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وفر سهل بالقدر خيره وشره مركا دوسن قفكو قدر كالرومين أرتو أغو قفكاسي مؤمن ما بقى هبا إيمان ما هيستوه حراد ما كجرو قف إيمان لما مدكالي قدر كلابو نقضا خير يا شر
sharta isagoo naftiisa aan idhi lacalahu khayr corona marka hadda uu corona virusi waa inagii ka duubna kiliibkii lacalahu khayr صح yani waxaa suuragala inuu inaga qarsoon yahay oo shar aan u ara hadda waxaa laga yaabaa faadumo oo kale in waxaa ku dhaca ilmaheedii baa laga qaatay waa qoyska ilmihii baa laga qaatay ay dhashay ay ku soo rafaaday waa laga qaatay caawa lama joogaan laakiin faadumay waxaa laga yaabaa inuu ilaahay kugu talagalay lacalahu khayr وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون إلهي بأوك أنه مؤك قرن مين لعله خير وحاول لغيابا المهاجي يعني قفكم مركي كالتغان لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بالي هذا وضرتين قرآن كحتى مركي يعني ضدك waxaa imaanaya close yani xubbi intii ka badan ziyaado ka badan ilaalin ka badan daryeel ka badan ka badan ilmihii baa hadda iyagiina maalin walba soo hadlaya oo soo raadinaya wiilkeedii salmaan baan ka bartay carruurta magacooda iyo maaragtay qaybaha kale thurayana waan u malaynaya ka mid tahay marka ilmahaas yani iyagii baa raadinaya hooyadood iyagii baa soo doonaya iyagii baa xusuustay wanaagga u haysa iyagii baa garanaya maanta meesha ku nool yihiin iyagii baa marka reerkan inuu ilaahay ula damcay waddadan inay maraan bay ahayd qadarkana ilaahay wuxuu u sameeyey inuu lacalahu khayr iyagina khayrba ay u noqoto insha allahu tacala marka waxaan rabaa inaan idhaahdo walaalaha kale ee wax ka sheegaya oo midii runtii waxoogaa markaan dhegaystay gabadha hadalladeeda yacni mar walba ay ku soo noqdaan aan ka dareem ruuxa markaad arto isagoo wax ka hadlaya waxaa dareemaya in pressure lagaga hayo dad baa jira marka si xun uga faa'iidaysanaya oo hadalladoodu xun yihiin oo imagekay bixin xun yahay oo maaragtay ama meel ha geliyaan clip ay leedahay isagoo si hawqaasi hadda sheegaysay marka dadkaas inaan idhaahdo ilaahay uga baqa qadarkana rumeeya berri idinkeedin ku dhici kartaa waxaa suuragala inaad sabri weydaan iyadoo way sabirtay waa saabira way ku shukriday ilaahay bay ku xamdiday adigu inaad kaga tagtaa suuragala waddada kaga weydaarato inta ilaahay dadku se u kala iimaan badan yihiin ma marka la imtixaamo u kala adkaystaan marka qadarka ilaahay u daaya allana u soo barya oo u duceeya qofku wuxuu qabanayo ilaahay u bari oo gacmaha alle ugu taag inuu ilaahay ilmaheeda u soo celiyo taasina waxay wadda inay martana ay ahayd walacallahaa khayrayna u tahay naam ما شاء الله فاطمه ما شاء الله إلهي هاكو شرفه الحمد لله وما هتسنتهاي مروح شكيغا أو سمركا هرتا شيقا أنا ما دها أنا وذات أهين waxaan weydiiyey waalidkay inkastoon u tagay xagtii oon ku xanuunsaday markaa xagga tegay yani baybigan iyo naxdintii dhagax iigu soo booday xaalad aan soomaaliya la kulmay oo aan la joogay 11 beri bes marka waan weydiiyey midaan u kala weydiiyey ma jirtaabaa idhi wax yar in aan iniga bi'iyey aabbo hooyo adiguna ma tabane markaasay dhaheen maya حتى بني آدم كهيرك إدارسيين تاسع كميد أهيد وحا إري أوكي كلمات كستمرك وابها يهويدا يقول يعني وحا كميدا يفهم الكيغون وحا كميدا كلمات وابها سوء العليو ما نداي وكود وحا نكود سمر أو إيمان كسوغيا هويدا يسيدو كلا هويو إنا تسمرت أو قلبي قاعد في عيا مركز تكود مركان كو أركب إلها كسوغيا الحمد لله ما لا إيجا فيلين رون أهانتي أنا كلها الله يا مرمر كار إسلو سده ونوران لهيد الحمد لله هذا وايد عضي لا ما هذا يعني إنا أود الله أي وحول بيهين أيان حياة كوفة سرتي ضدك ما واحد جيرو قفك إيمانك كاب حين عيوكله ضد بدن أي ضدك قوة علينا ما قبل بدنه أو مركي الملقى قاعد حافظي كجورك تبع بدن عن قبل لو ذاقي qaarkood taleefana aan ka qaban jiray ayaan oo xanuunadoodii ku jirado hadda joojiyay aniga igu dhacay marka waxaan ku yiri joojiya ilaahay isku xira waalidkiin bas labada waalid ka duceysaa lagu dhahay iyo qaraabadaada marka qiil way ku raadin kartaa laakiin labadaada waalid muhiim ah in ay ku duceeyaan baan ku dhahaa dadku marka ila soo hadlaan dadka qaar marka waxay leeyihiin war naagtan inkaara haysato war waa beenteed iyo way dishi iyo
booliiska la dagaashay meesha waalida waxa loogu dirooyo way dagaalantay marka afkiya ka fudud waxay rabaan intaas qof daciif helaan ama ay qofka iimaanka islaamnimada ahaa oo ilaahay uu u aqoonsana inay ka bixiyaan ay xad gaarsiiyaan inay waalato ama inuu qofka isdilo ما شاء الله ما شاء الله الله كحفظه الله كحفظه فضيلة إمام هذا كور واحد كوري يوتيسو بناها نبدي نحرج كوركيس ها أهتو والرياضة أسنا حسوس مركز سيدي جزاك الله خير بارك الله فيك أحمد وقتي هري أهيد وأنا كشك يوم ملينا إياه سبحانها نبي الله محمد رياديسو بين معها شيطان كنا اسكومن مثاليو iyadoo oo dhan la yidhaahdo waa qayb nubuwada aynu hormarinay marka waxay ahayd runtii isagoo aad iyo aad u qurux badan cibaado badanna ay ka muuqato wejigiisa akhyaar kalena ay la joogaan baan arkay masaajidkan hadda aan dhex fadhiyo ayay ahayd oo nuga sheekeeyey subaxii waxaan lahaa kitaab buluuqul maraama baan aqrin jiray marka waxaan xusuustaa salaaddii subax baan arrintaa kaga sheekeeyey marka waxaa muhiima nabiyullaahi maxamed riyadiisu inuu yidhi shaytaanku iskuma kay suurayn karo qofkay arkaa way arkay waa isagii oo dhaba insha allahu tacaala riyaduna si guud ahaaneed waa nubuwada qayb ka mida waxaan rabaa walaalo gadaal ka soo galay inaan ku yar celiyo qisadii riyada gabadha aan ku arkay faatuma hadda oo isku xidhan waxaan qaybtii hore waxoogaa way kala go'nayd marka waxaan rabaa inaan wax yar walaalaha gadaal ka soo galay aan isku xidho waxaan rabaa walaalayaal inaan idiin sheego faadumo ayaan ku riyooday habeen dhoweyd iyada oo qalliin martay oo laakiin qalliinkii ku guulaysatay oo dhinaca midig dhakhtarkeedu iga fadhiyo dhinaca bidixna ay iga fadhido iyagoo dharkii qalliinka maartay qaba waxay iigu bishaareeyeen habeenkii markaan ka hadlay 27ka bisha ramadaan subaxeedii in qalliinkii lagu guulaystay waxaan raadiyey subaxii tafsiirka qisada oon u raadiyey culimmada cabirta riyada waxaana ii soo baxay ereygan aan raba inaan idinla wadaago alcamaliya aljiraaxiya bishaklin caamin fi lmanaam tadullu calaa ana alhama sawfa yazuulu camaliyada qalliinku obereshinka qofka lagu sameeyo waxay tustaa guud ahaan in qofka wixii haystay oo hami ahaa iyo fikirkiisii uu zuuli doono dhammaan doono waxay tustaa ana alxaalima sawfa yatakhallasu min jamiici mashaakilihi fi lxayaa qofkaas inuu riyadaa loogu riyooday oo ah qofkan hadda ugu riyooday mashaakilka haysto oo dhan nolosha inuu dhammaan doono waa bishaara ilaahi subxaanahu wa tacaala waxay tustaa qalliinku inuu qofka qalaqa iyo waxyaabaha qalbigiisa ku soo noqnoqdo arrinta haysataay qiilata xayaatu waqtigan dheer uu ku jiraayay inay ka zuuli doonto waxay tustaa qalliinku inay tahay calaamatu khayr wa umuurin tasiiru calaa maa yuraa calaamad khayr ku tusinaysa iyo inay waddadii saxda ahayd iyo dariiqii wanaagsanaa ay ku socoto wuxuu tusaa qalliinku calaamatu farax wa zawaalu lhumuum inay farxad ay ka dambayso marka taasaa waxaa rabay dadku way jarjaraan mararka qaarkood kilibyada isaga oo wada socda inaan u soo celiyo jiraaxada aan arkay ama qalliinka aan faaduma ku arkay mashaakilka iyo dhibaatada gabadhaas way dhammaan doontaa insha allahu tacaala insha allah baan wax walba ku daraynaa insha allahu way dhammaan doontaa carruurteediina insha allahu tacaala way usoo noqon doontaa naam ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر له ذنبك فاضمو كلمه هذا كوغو دنبيسا maxaad shiiqa leedahay bal insha Allah shiiqa iyo insha Allah inta la nool oo masaajidka kula nool faataxa oo biiniye ah oo aniga aad iigu duceynaysaan qaybka ayaan codsanayaa si haddii ay tahay muraad ayaan leeyahay oo hadduu halkan khayr iigu jiro ilaahay oo i waafajiyo khayrka iisoo dedejiyo murugta iga qaado hadduusan iigu jirina meeshuu hamigayga yahay uu ilaahay i geeyo oo ilaahay ii fududeeyo faataxadaad isku kaysoo dardara insha allah intaasaan codsanayaa adiga iyo shuquuqda kula joogtaba
waana ku mahad celinayaa jasaaka allah khayr ilaahay jidkaada jannaha ka dhigo بارك الله جزاك الله خير أحمد وكقاي مياه maya way isu keendayaa u malaynaa marka insha allah isagaa kusoo noqon doona hadii ilaahay raali ka dhigo إن شاء الله فاضمو الله كبركيو إن شاء الله تعالى ولا وانكوسو دعينينا dadweynaha Soomaaliyeed oo dhan meel aad joogtaanba gabadha iyo gabdhaha la midka ilmaha laga wada qaatay maaragtay ha loo duceeyo si qalbi ha loogu duceeyo insha Allah ta'ala qaybka ugu duceeya maanta waa 29 bishii Ramadaan waa maalinta laga yaabo ama in ugu dambaysa ama maalinta ugu dambaysa ay ku xigtay u duceeya waa tiradii isdheerayd insha Allah ta'ala laylatul qadriga la raadinayay ee u duceeya dhamaantiin insha Allah ta'ala ilaahay inuu ilmaheeda iyo ubadkeeda ilaahay mar damba uu jamciyo oo gurigoodii uu qurxiyo oo farxad uu soo geliyo uu isu keenay insha Allah ta'ala kulligeen uu wada duceeya kelimada fiican qofku markii muslimiinta waxa la yiraahdaa fil afraahi wal ahzani xilliga farxadda iyo xilliga murugadaba waa kuwa isla dareenka la qaata ruuxa daarta murugaysan la murugo ha farxin adugu ha qoslin haddaad arto ruux qoslayana ha murugoonin marka waxaa la rabaa inaad labadaba la qaybsato axmedow dhowaan waxaad weydiisay faadumo ma taqiinay faadumo shakhsiyanna uma aqoonin annaga dadkao dhan baa dadka yaga ah qofka soomaaliga oo dhan waa dad gabdhaha soomaaliyada oo dhan baa gabdhahaygii ah wiilasha soomaaliya waa wiilashayadii marka laakiin dadku waxyaabo kale laga yaabaa inay isku xiriiriyaan qoys iyo qabiil iyo fulaan iyo qashin iyo waxyaabo kale fiiriyaan marka waxaa ila cajab badnaa su-aashaadi weydiisay baa hadda waxaan soo xusuustay faadumo wallaahi baana aqoonin ciday ka tahay soomaali mana aana waraysanin mana raadinin mana damcin inaan waco oon waraysto oon maaragtay su'aalo weydiiyo wixii aan arkay baan ka hadlay marka nin oday ah baa isoo wacay shalay darad oo oday oo da' odayaashu waad ogtihiin oo qabiilkiiyabaa ku weyn iyaga inta badan markaasaa wuxuu sheekh axmed gabadha ma taqaanaa markaasaan idhi maya markaasuu yidhi gabadhu waa reer hebelo reerkii oo dhan baa halkaa kaaga ducaynaya caawa waxaan idhi adeer anigu reer hebel ahaan uguma ducaynine waxaan ugu duceeyey gabadhaa walaasheeya ee ilmaheedii ka maqan yihiin ee murugootay ayaan la murugooday marka taasaan ugu ducaynayay marka adiga macno gaaray kuu samayn baan u malayn baan idhi inay tahay reer hebel laakiin aniga macno gaara iima samaynayso waxay ii samayn inay tahay walaal muslimad ah oo ilaahay ku xidhan ba aniga macno ii samaynaya marka waxaan rabaa walaalayaal inaan dhaho ilaahay darti ugu duceeya waa walaashiin waa walaasheen waa walaashay waa adiga walaashaa qof walbow kuwa kale ee iyagana saasoo kale u wada duceeya kelimad fiicanna taarta oo markaad rabtaa ama wax u qabta waxaan dareemaya axmedow markaan kiiska gabadha waxoogaa dhadhegaystay ba waxaan isweydiiyey shalay waxaad duubteen adiga faadumo kiliibkiinni xalay baan dhegaystay oo aan dib u dhegaystay si aan maaragtay barnaamijkan maanta wixii igaga soo cusboonaada aan u ogaado baa marka waxaan aad iyo aad u dareemaya kiiskeeda markaan marar badan waxoogaa ka dhegaystay aan isiri dadka reen jooga reer Sweden iyo dadka Yurub oo kale nooga dhow dadkii ahaa looyarada dadkii ahaa waddanka iyo noloshiisa aadka u yaqaanaayay gacan fiican show ma siinin qoyska baa su'aalan aniga keliga isweydiiyey waayo waxaa ii muuqanaysay kiiska waxoogaa in maaragtay uu gabadha qaabka ilmaha lagu qaatay iyo qaabka ay hadallada qolada dhakhaatiirta ugu jawaabayaan iyo kuwa hadda uurkeeda waraysanaya say ugu jawaabayaan iyo in qofka toosh lagu shida isaga naftiisa sidii u mahadcelinaysa dadkan Mareykanka jooga isay iskugu xiran yihiin iyo markaad nacam waa arkay maasha Allah iyo dhakhaatiirtii shalay laynkeedin kula jirta hadda nafteeda aan rajaynaya in dad badan oo dhakhaatiir nala waxaan u jeedaa looyara nala socdaan marka Soomaalida walaalayaal codsiga labaadoon u soo jeedin codsigii hore waxa weeye u duceeya walaashiin iyo reerka u duceeya codsiga labaadna waxa weeye qofkii caawin kara oo arrintaa gacan ka geysan karo ka geyso gacan insha Allah ta'ala taladu waa caawin wey tusaalayntu waa caawin wax u sheegu waa caawin wax la qabadku waa caawin marka umuurtaasna waxaan rajaynayaa inay dadka Soomaaliyeed meel joogaan qof ka fog baa ku caawin kara gabadha la xiriira
axmed idaa waqaca baa wariye ah oo maaragtay inoo soo xidha shalay iyo maantaba xiriir la sameeyo qof kasta oo wax ku taaran karow ee hawsheeda wax kala qaba insha allah waxaan rajaynayaa faadumo waxay rabtaa inay kelimad ku darto insha allah haye ها ما شاء الله شيخ أحمد الحمد لله horta reer Sweden gacan weyn ayay iga qaateen marka runta ku sheego oo waayo shalay iyagaan ku dhex jiray aaday maxay ahayd moral haday tahay labada shaydaanka lumiye ma ahna dadka wanaagsan oo iimaan kale ee ila soo xiriireen ii kaceen haday siyaasi tahay haduu yahay mid sharciga ka shaqeeyo waxa kale oo sharaf iyo ciise ii mudan shiiqeena oo Sweden ugu weyn shiiq maxay ahayd Sheikh Hussein oo imaamka Sweden ah oo dawladda u diiwaan gashan oo ilmaha islaamka u doodo oo dadka islaamka shaqo u qabto in uu garabkayga taagan yahay in kiiskayga oo galay in uu ii yimid in uu arkay in uu nala fariistay in gurigan aan hadda dhex fadhiyo oo iigu yimid haddana way suurtageli weysay oo markaan ku leeyahay dadka markaan waraysta xanuun ay ugu dhacay waxaa ka mid ah yacni tuulo yar ayaan deganaa tuuladuna simsonka ay dadku ay ula dhaqmaan ajaanibka waa simson aad u qaldan oo xanuun badan marka siyaasi iima harin maanta horta oo gurmad weyn waa la ii fidiyo meel kaste alxamdulilah looyarkana sidoo kale 3 looyar aan haysanaa oo maxay ahayd wiil Soomaali iyo 2 Swedish ha ahaato dadaal waa muujiyeen ilaahay xaqiisa ay wax walba ka dhiman yihiin imaamkan aan haystan alxamdulilah oo anaga dhan wada haysan laakiin si gaar ah si qaas ayuu ila kurbooda oo ii og yahay siyaasi sidoo kale wiilka kale oo sharci yaqaanka oo anaka noo maxay ahayd guudmaanka arinteena oo ilmo badan soo celiyo wuu ku dhibtooda tuulada tan been Allah caay waayo wuxuu ilaa hadda kale ay yahay biliis dadka la shaqeeya biliis hooyada iyo aabaha fiiriya haddii dad qaar waxay gudbiyeen dadkan shaqo ma rabaan markaasuu dhiiri qeefkii wariyaa kuu sheegay dadkan u dira ii sheegay dadkan aad adigu mas'uulka ka tahay ma rabaan shaqo war way rabaan war way daaleen war anaa ka mas'uula war dadkan shaqo waa rabaan warkiiska ilmahan waa kala qaldan dib u baar marka horta wallahi suma wallahi reer Sweden ku hagraday mas'ala ah ma igu jirto koow ee waxa adeega waa halkan oo tuulada aan yani wax xaquuq dhan aniga caruurteeda aan siinin oo xataa sharciga Sweden dardareen oo ilma hadlaaya xataa Sweden waa la qadariyaa ayagu ma qadarinayn daraad markay first time ilmeyga iga tusaayeen oo ugu dambeeyay isniintiya hooyadeena aan u baahanaa war maxaa noo dhibaateynaysiin war gurigan waa la igu dilay oo wiilkayga laha kaliibaan soo duubay war aniga family ahel ma rabo war ani meel ba igeyseen dhibaato ay hayso marka aaday u dhageysan waayeen laakiinse dad ma eedeynaayo ilaahayga boqorka ah ayaan dadkaas aan rabbigaan tala la saarto wax kale oo maanta aan isleeyahay waa lagu qaban karaa ama waa laga haray ma jirto ما شاء الله aad waxaan uga xumaa khadkaaga xun maantay fadilatu imaam gunti iyo gabagabadii maxaad ummadda Soomaaliyeed u soo jeedinaysaa maxaad Faadumo iyo qoyskeeda kula dardaarmaysaa بسم الله وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ولا ليال جزاكم الله خير وبارك الله فيكم فرحات بين نوتها مركور إن ولا شيء لا قيب سنو همومتها كلا قيب سنينا إن شاء الله تعالى حزن يا فرحات لا وضب وكلا قيب سنينا dadka Soomaaliyeedna alxamdulillah meel ay joogaan ba garab kaaga yihiin inta fiican oo dhan waana dad fiican ilaahay dadkeenu ilaahay ina siiyay insha Allah ta'ala waxaan ilaahayna kaaga baryaynaa rabbi subhanahu wa ta'ala inuu ilmahaagi saalimiina ghanimiina iyagoo ku soo celiyo gurigaagana ilaahay waxaan ku weydiinaynaa inaad mar labaad farxadii ay idinku soo noqoto caruurtaadii oo dhan inaad dhex fadhiisato insha Allah dhinacyada ka fadhiistaan baan ilaahay subxaanahu wa tacaala ku weydiinaynaa waxaa kaloon ku weydiinaynaa rabbi subxaanahu wa tacaala ilmaha calooshaada ku jira inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala isagana kuu nabad keeno ilmo fayow oo caafimaad qaba oo baariya ila kaaga dhiga insha allahu tacaala ilaahayna subxaanahu wa tacaala kuu fududeeyo idinkala nabad keeno insha allahu tacaala waxaa kaloon rabaa dadweynaha Soomaaliyeed walaalayaal inaan idhaahdo meel aad joogtaanba khayrka iyo wanaagga gacan siiya xumaantana ka dhiidhiya oo celiya insha allahu tacaala
gabadha walaasheenana cid kasta oo kelimad wanaagsan iyo maaragtay taaran kartaay ha la shaqayso haddii alla idmo waa dardaaranka aan dadweynaha siinayo carruurtiina dhib badan baa jira oo dadka qaarna si sahlan baa looga qaaday sida hadda gabadhan oo kale ku dhacdo wax khalada oo ilmaheedii ay ku samaysay aan jirin deriska iyo dad kalena ay sabab u noqdeen laakiin dad badan baa jiro ilmahooda si kale looga qaataay ilmihiinana close ku noqdo oo u dhowaada ilmaha dhegaysta insha allahu tacaala alinsaat in ilmaha la dhegaysto waa wax fiican waxaan idhaahdaa dadka jooga meelaha dadka waaweyn la geeyey idinka naftiina ilmaha dadka waaweyn oo meesha lagu xanaaneeyo la geeyo waxay ugu baahi badan yihiin waa in iyagu wax dhegaysta ay helaan marka si aad adiguna wax ku dhegaysta u hesho adiguna ilmahaaga dhegayso jacayl badanna tusa insha allahu tacaala carruurteenna sidiiq iyo saaxiibna ka dhigta iyaga kelimooyinka ad adag iyo tasalludkana ka ilaaliya xuduudda sharciga waxayna diidanin oo sharciga islaamka uusan diidanayn ama qaanuunka waddanku uusan diidaynin ama nabadgeliyadooda aan dhaawacayninna xorriyad ha loo siiyo maxaa jira dadka yurub iyo maraykan joogaayey waddankan aan joogno waddamadeenni ma ah hadday ilmuhu kaa tagaan waddankeennii waa laguu soo celin jiray aabba waxay u tegi jireen adeer bay u tegi jireen abti bay u tegi jireen habaryar bay u tegi jireen awow bay u tegi jireen ayeeyay u tegi jireen waa la soo celin jiray laakiin meeshaan laguu soo celin maayo bimujarad waa intaa walaasheen ku dhacday hadda tusaale gabadheedii oo guriga ka baxday oo wax yar oo ka maqneed guri kala tagtay boolis baa horey looga wacay looma soo celin orod noqo gurigaagii ma jirto marka ogaada waalidkow meeshan ma aha meesheennii ma aha meesha ilmaha intii lasoo xarfiyo oo lasoo canaanto lo odhan jiro orod gurigiinni ku laabo ma ah meel loo gacan haatinayo oo dusha laga salaaxayo oo loo yeedhanayo oo la leeyahay ha ku noqonin meesha baa ka horraysa marka ilmihiinna insha allahu tacaalaa u dhowaada oo xorriyad wixii suuragalana ha loo siiyo laakiin wixii qaanuunka waddanka taabanaya ama sharciga taabanaya ama maaragtay nabadgelyadiisa taabanaya qofna uma oggolaan karo qofna uma oggolaan karo waana middaan lahaa walaashay waxay samaysay kuma eedayn karno qof walba waa waxa uu samayn lahaa wey waalid walba wuxuu samayn lahaay waa inuu ilmihiisa ka ilaaliyo wax akhlaaq xumo u keenaya insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala haynoo wada badbaadiya carruurteenna iyo ubadkeenna gabadha walaasheen waxaan ugu ducaynaynaa codsigii ay naga codsatay waana dhegaystay clibkii hore oo shalay aad ka qabatay inaan iyadan ugu ducayno ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa aad jeceshahay allah kuu suura geliyo waxa aad jeceshahay iyo hamigaaga allah kuu suura geliyo insha allahu tacaala khayrku meeshuu kugu jirana allah ku mariyo ilaahay subxaanahu wa tacaala nacam ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير فضيلة الإمام ربي سبحانه وتعالى جنة الفردوس هكو جيو فاضل ما حد يقول ما هذا علنا شيء كم وضمينتي جزاك الله خير إلهي جدك أنا كاغري يعني أنا كفي عن وقومهم سن مجرى الدنيا أقرب بارك الله فيك جزاك الله خير بارك الله فيك بارك الله فيك أحمد خدك كحن سدو شاقي نعم وقو أي مركا السلام عليكم هيا ولا إن شاء الله هيا الله كبرك جزاكم الله خير ددوينه هردن ميلا جوكتانبا إن شاء الله تعالى آد بندين سلامينا ولا أحمدنا إذا وقعنا وكم هاتسنيا إن شاء الله تعالى برنامج كان إيه همومتن ولا شيء لقيب صدي مر والبنا ضدك مسلمين تابو رنتو تاغية أحمد ما أرنتان كليا maalintii wuxuu galaa baan filayaa celcelin ahaan saddex ilaa afar life buu soo galaa oo humuumta dadka soomaalida iyo dhibaatooyinkooda uu kaga hadlaa xadiidkii rasuulkuna insha allahu ku sifoobi doonaa ee ahaa axabu nnaasi ila allahi anfacum linnaas dadka ilaahay jecelya waa dadka anfaca weeyaan insha allahu tacaala marka aad baan isagana ugu mahad celinaynaa allah baan u mahad celinaynaa walaasheen iyo faamiligeedana allah idin barakeeyo waa idiin soo ducaynaynaa codsigaagiina waan kaa qaadaynaa dadweynaha soomaaliyeedna waxaan rabnaa inay insha allahu tacaala iyaguna kaanala wadaagaan waa mahadsantaha walla jazaaka allah khayr baaraka allah fiik axmedna waa mahadsan yahay khayrka siduu u wado ilaahay boqorka ah ha ka abaalmariya ayaan leenahay salaamu calaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu baaraka allah fiik haye
السلام عليكم. وكحمها السلام ورحمة الله أحمد. قد كأحم سيدي بارك الله فيك رب سبحانه وتعالى جنة الفردوس أكو جيو أديك يا أبايبا إن شاء الله بإذن الله الكريم إلهي وحيد الدباء إذا ما تصو دنبي إننا الله دافو إن شاء الله بإذن الله الكريم رب جنة الفردوس أكو جيو دنبي دنبي وارد كان الله دافو إلهي سبحانه وتعالى أنا ما ركتي وناق يسداد أمضى وديرنا حيث رب سبحانه وتعالى هكو وديرنا حو سيدي aad baad u mahadsantahay jannadii allah nagu kulmiyo insha allah bidmillahi kariim noo soo duceey جزاك الله خير أحمد بارك الله فيك الله كبرك يا دين وقود عيني إن شاء الله تعالى كا حمايو كا جوجو أيي مركوان وعذر دارني وأنا كود عيني إن شاء الله تعالى وأن جبين بارك الله فيك سيدي وياك سيدي وياك